السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين عاشقين هدي aad nagu cusub tahay channelka subscribe like share waa xagaaga haddii aad hore noola joogtana waan kusoo dhaweynayaa big love waan ku siinayaa asxaabey maanta waxaan rabaa in aan usoo gudagalno qisadeenii ahayd wejiyaal isxasuusta qaybta saddexaad baan rabaa maanta inaan usoo gudagalno waxay noo maraysay qaybtii labaad ay noogu soo dhamaatay iyadoo reerka ay kala kaceen xawaale reerkiisu ay dhaheen gabadha iyo familkeeda ha nagu soo qaadin mar dambe sheekadasan soo gelinin iyadoo gabadhii cadarheed reerkeedu ay cishteen ay dhaheen wiilkaas ciyaal iskuulka ah nama soo galo halkaasay noo maraysay qayb saddexaad marka waan u gudagelaynaa labadii sano oo gurmadka ahayd way soo dhamaatay asxaabey markay soo dhamaatay labadii sano oo gabadhii cadar ahayd waxaa loo qabanqaabiyey aroos weyn oo la arag oo la maqal baa loo qabanqaabiyey baa loo sameeyey arooskii ciyaal iskuulka dadka isla ahaayeen dadkii magaalada wixii dhan aroos aan cidina ka maqnayn buu ahaa si qurux badan baa maxay arooska ku dhacay waa la gurugeeyey gabadhii cadar ahayd ninkii kabtanka ahaa reerka kasoo doontay baa loo gurugeeyey wiilkii cawaalo ahaa arooskii markii uu soo dhawaaday uu maqlay gabadha cadareed waxaa la aroosiyaa 2 bir kadib magaalada dhan wuu ka tegay wuu kasoo cayaamay wuxuu soo aaday halkaa iyo magaalada muqdisho oo reero ay qaraabo ahaayeen buu soo aaday magaalada wuxuu yiri ma basiin karo niyad iyo weji ma basiin karo gabadh aan jeclaay oo la guursanayo nin kale xaas u noqonaysa alay ka tahay inaan fiirsado wuu soo baxay wiilkii isagoo aad u maraalo dilaacsan oo niyadiisu aysan ma aragtay fadhin buu xamar yimid wiilkii cawaala ahaa gabadha cadareed waa lala aqal galay waa la guursaday reerkeedii bay dhaqanaysay ninkii kabtanka ahaa baa guursaday cawaalana xamar buu nolol ka bilowday iyo inuu jaamacad galo xamar buu jaamacad ka galay family qaraabo ahayn buu la noolaa xamar jooga jaamacad buu bilaabay jaamacadda wuxuu bartay ninkii la yiraahdo cawaale jaamacaddii la oran jiray kulliyadda luqadaha buu bartay wiilkaas kulliyadda luqaduhu galay halkaasoo jaamacaddiisa ka dhiganayay isku mashquulinay intaa aan usoo laabano gabadha cadar ahayd cadar waa la guursaday kabtankii baa guursaday laakiin guurkaas guur jacayl ku salaysan ma uusan ahayn intaan la qabin 3 bilood gabadhii cadar ahayd baa waxaa dhacday ninkii kabtanka ahaa gabar uu jeclaan jiray oo ay kala lumeen inuu helo baa dhacday bal arrintan waxaan nafsi geedka la yiraahdo bal fiiriya dadow intay daawanaysaa kabtankii baa wuxuu dib ula midoobay gabar ay jacayl ka dhaxayn jiray isku iskuul ahaan jireen bal fiiriya qisada meesha ka socota gabadhii bay sarkeen maalmaha ka mid ah sikadis ah iyadoo gabadhaas shaqo laga siiyey meel la yiraahdo wakaalada qaranka oo ku taalay magaalada Dhuusamareebad bay gabadha xafiis bay fadhiday gabadhii buu arkay wuu yaabay sabraysay ku noqotay iyo waran dhablaayo halkan maxaa kasoo doontay dad iskuul ahaan jiray waran halkan ka shaqeeyaayo meeshaan baa ma aragtay waxaan ka ahay kaaliye ninka agaasimaha meesha xukumayaan kaaliye u ahay ninkii gabadhii markuu arkay kabtankii jaagu isbedelay isaga dhanba wuxuu bilaabay xitaa in uusan gabadha uu qabay oo xaaskiisa cadareed inuu ka dhaxo buu bilaabay gurigiisa uusan imaanin niman iyo dhalinyaro iyo yani niyad dhanbo jaagu isbedelay ninkii dhamaa gabadha cadareed waagaa ku bariyey way aragtay meesha waxaa ka socda waxa ay sugaysan ma aysan ahayn balse waxa iyadu ay ma aragtay keensatay ma aha gabadhan oo wax oo lagu magaciisiyay iyada ma biyaalaan meesha waa guur maxay ahayd qasab oo waalidkooda ku dar ayay ahayd gabadhii way joogtay maalmaha ka mid ah gurigooda bay timid hooyad bay u tagtay waxay tiri hooyoy aniga ninkaan qabo waxyaalo aan ka mudnayn baan ku arkay hana ila yaabin maxaa ka mid waxyaalahaas hooy ninkaan aniga ima soo hoyday tiri habeen buu iska dhaxayaa waxba iima sheegto ilama sheekaysto anigu dhan waxaan ahay qof musawira guri taagan marka saan ma qabtaa naya jooji waxaas ninkaagu wuu ku jecel yahay
maxay ahayd wuu ku rabaa waxaa iska daa wiilka xumaayo ciyaar iskuulka habaa niyadda kaaga jira hooy ninka aniga igama jiro bal maxaa saa ila hadlaysa anigu runtii waxa gurigay ka jiraan raba inaan kuu sheego orod bay tiri anaa aabbaha u sheegaye orod oo iska tag bal gurigaaga aad reerkaaga dhaqo habeenkii markii la isku soo hoyday odaygii dhalay cadar iyo hooyadeed way isla hadleen waxay tiri gabadhiyo dacwo ah baa maanta ii timid haye gabadha waxay ka dacwoonaysaa ninkii qaba oo waxay leedahay iima soo hoydo ninkan wuu isbedelay haye marka hadda adigaa odayga reerka ah bal wiilkii gabadha naga qabay bal la hadal waayuu yiri la hadlayo wuu soo baxay odagii u yimid wiilkii meesha ku shaqaynayay oo yaqaanay xafiiskiiba ugu tegay maalin maalmaha ka mid ah haye ii warano nabada hadar soo dhowo cuntada siiya shaah iyo waxbaa loo keenay odagii meeshibuu ku fariistay oo sheeka hal ka bilaabeen markaasu wuxuu yidhi adeerow xoogaa maanta arrin dacwo ah baan kuula socday maanta maxay tahay arrin dacwada iila socoto arrin dacwada gabadhi way kaa cabanaysaayo inkastoo anigu aan dumar aaminaynin oo de annagaa rag isla ahe bal maxaa jira adeero bal ii waran waa odagii u ree magaaleeyey wuxuu yidhi adeer gabadhaada horta inkastoo siisay ilaa waa nin wax kala dalacsane gabadhaada anigu maxay ahayto maba ku qanacsaniba yacni naag ma aragtay maba u diyaarsanaba naag qof la qabi kara maba ahanba weli waa ciyaal gabadhaadu bal fiiriya ninka nabsi ninka la yiraahdo waxaa layidhi nabsi sooma degdego soo yara degdhacaa mid soo degdegana wuu jiraa gabadhaadu wuxuu yidhi adeerow aniga anu laftigay inaan kula hadlaan rabay maxay ahayd gabar ma aragtay diyaarsan oo xaas maadaama anigu aan ahay nin madaxa ah yacni dadka asaagayga waxaan ka baqaaba inay yacni dadka igu ceebayso qof diyaarsan ma ahan waa gabadh yaroo ma aragtay aan soo lugooyey odaga indhaha ka soo haray maxaasaa ila hadlaysaa adeer waa saasuu yiri adaaba hadda iga soo hormartay maadaama aad iga soo hormartay waan kuu sheegayaa wax jira gabadhaadu gabar dhaqan diyaaro ah ma ahan marka adeerow adoo ig raalli ah haddaan gabadhaada kuu fasaxo maxaa ka qabtaa muustiga adag ku yeertay yaa ma gabadhaydaad leedahay waa kuu fasaxayaa waa kuu fasaxayaa gabadhaada sababtoo ah aniga naag i qalantamaba ahanba يعني قبرير وقبر ليرة أنا أقول إني مسؤولة أنا هاي وحنا باهنا قف مسؤولة وإلا كان قاعد كتر باهنا وذا بحويرة بالماندو إستشي وذا بجوالي بكبرين حب كهاد لعبة بالماندو إستشي حالك صار معهن قبل دون لحظة بل أذقنا ما عرفتي بل إيه ورسوق عليها قبل أنا ما عرفتي أنا إيو حاسكي قصة شنينة قبل دون لحظة بل وحي كقلدن إنا يساعدوا بانك شقينينا بل واي هو من شرف لينكس قبل هذا إيسيسي لكن أديرو أنا ماشس وح في عن أغمتي بس هدا إلا هذا هو صح هنا قبل ديني وكسوجينا وصوب حي أذقي السوق آد إنه يتشبسن وهذا قرن كذا لدينكم بأصحابي وهذا هي قرن كذا قضي اللي يري قبل هذا إيران فران كفكريا dareenkas meeshaas kolley waxa waaye ma u baahna inaana idin turjumo wuu soo baxay odagii gurigu yimid markuu yimid islaantii uu yimid uu qabay wuxuu yiri waxaan rabaa bal inaan kula hadlay bal kaale meel gooniinag iyo carruurta naga dhex bixi maxaa jira xaaji maxaa dhahay bismillaahi raxmaani raxiim wax dhibaa jira maxaa soo kordhay mayuu yiri wax dhib oo hadda aan dhibna waa jiraa balse balna keen gooniga u baxeen odagii iyo islaantiisi gooni bay u baxeen beel gooni tageen qolkooda jiifkay tageen wuxuu yiri walaalay aniga arrin maanta iga yaabisay baan soo kulmay wiilkii gabadhan naga qabay wax aanan ka malaysanayn baan ku soo arkay maxay yihiin maxaa dhacay muxuu leeyahay ma gabadheedu ka dacwooday dacwaa ka hadlaysaaye wuxuu yiri ninka kan wuxuu bataagan yahay
inuu gabadheeni furo arrin furiin baaba taaganba sabab maxaa dhacay see ku dhici kartaa maxaa ku furaya gabadheena waa gabar nadiifa waa gabar saana waa gabar qurux badan waa gabar isku dhamaysa dee hooyo waa taqaanaa gabadheeda dhankeeda lagama maro mayuu yiri laakiin wuxuu ka sheegtay mas-uuliyad darro ninkana waa nin madax ah dad madaxa baa maxay ahto guriga yimaada gabadhaana ma taqaano sidii loola ma aragtay ma caamilo dadka madaxda ah buu leeyahay wiilkaani bal gabadhaadi la soo hadal wiilkan hadda qaatiyuu taagan yahay isagaaba noo imaan lahaa intay gabadhu noo imaanin masaas baa haa bal waaya hadday saas tahay bal gabadheed anaa la hadlaya islaanta way yaabtay way fakartay kaligeed bay isla hadashay waxay tiri hawshani meesha ay wax ka qaldan yihiin baba inaa ogaadaa fad bay soo tiriyo guriga gabadhay timid islaanta way soo baxday gabadhii soo aad xaafadda gabadha lagu qabay gabadhii u timid hooy maxaa dhacay maxaa dhibu jira maya bal aan sheekaysano sida gabar iyo hooyada u sheekaysana maanta haye maxaa dhacay hooy maanlay ninkaagu maxaa ku samaysaa see bal dhaqankaagu suu yahay bal ii waran bal warbixin isii hooy waxay tiri waxba yaalasin gurigay waa kana waa ujeedaa saanu gurigay maxay to nadiif yahayo maxay ta ii argna isaga dhanba u taagan yahay waa aragtaayo quraaca kada barmiisa ku diteersan kariyaayo jikadan ku jiraayo cunto kala nooca maalin kasta ninkaygu sameeyaayo gogosheeda waa tanaayo bal fiir maxaa ii qaldan hooy gabadhi waxay tiri ninku wuxuu kaa sheegay inaad ciyaalnimo kugu jirto yaa maxaa tiri hooy gabadhi way qaracantay ciyaalnimo ma anigoo intaa la eg oo maxay ahayto dhowr iyo 20 sano jir buu ciyaal igu sheegay ninkaan hooy ninkaan inuu isirib waa kuu sheegay aniga meeshaan wax ii yaala male shalay idinkaan idin huri waayey maxay ahayto marka ani inaad maanta iila timaadaan ciyaalnimaad ninka uu kaa dhaqanin ayaa meeshaan dhaqan iima yaale hooyoy si sharaf iyo edab le ninkaan hasaga kay fasaxo ninkaan waxay u falaya maana waa maraan ba arkay ninka iga soo dhaxayo oo ila sheekaysanayno waxba ii sheegayno aniga dhanba sida qof masawir guri dhex taagaan ka ahay maraan arko hooy ninka aniga ma rabee si tartiib ah ha ii fasaxo intaan ka badan kala gaarin bal aabbahaan isku noqonaynaa ay tiri islaanti aabbaan isla soo hadlaynaa wuxuu ii soo sheego bal isku afgarano annaga naga warsug waa la joogay halkii markay sheekadu marayso islaantii bay gurigeeda ku soo laabatay baa waxaa u timid islaan ay darsiyihiin baa u timid galab galbaha ka mid ah adigu 2 galbood iyo waxay kasoo dheerta aqaan meelahaas bay u timid haye iyo rama fiicanta heblahayo baryahan isma aragay meeshaa lagu qaxweeyey baan isla sheekaystay dee dumar waa taqaanaa ka sheekaysanayaan haye iyo waran maxaa bal gabadha iiga waran gabadha ilaahay wax ma siiyo siyaada iyo wax ma jiraan bal iiga waran dee waa taqaanaa islaamu gabdhooda guursado gabadha uur meelda iyo waxaas bay ka fikiraan iyagu ma ogtahay see u dhaqmaysaa ninkusu u yahay gurigisu u yahay maba ka fikiraan ilaahay wax ma siiyo gabadha oo wax ma soo socdaanoo wax ilmo qadka ma kusoo jiraan iyo waxyaas ka waraysta wallahi waxay tiri gabadha waxba iima is sheegin laakiin waa iska fiican yihiin islaantii hadalka waa soo koobtay waa iska fiican yihiin kusoo koobtay waxay tiri soo dhawow haye arrin baan soo maqlay maxay taa arrintu waxaan soo maqleen wiilka gabadhaada qaba in qof ay saaxiib ahaan jireen berigay iskuulkii ay isjeclaayeen in halka gobolkaa loo soo bedelay oo ka shaqaysa kaaladaaka qaranka gabar meel fadhida madax ka ah in ay israbaan hadda oo uu rabo inuu guursado baan soo maqlay haddaad fadhidana fadhi haddaad jiiftana soo toos saa ula soco islaanta muusigaa ku yeeray dhin maxaa tiri afkiyaa kala tegi yaa ma gabadhayda uu sidii la ogaa ku siinay sharaftii la ogaa aan ugu darnay oo xitaa gabadhayda iyadoon raalli ka ahayn aanu qasabnay miyuu waxaas rabaa inuu ku dhaqmo macsalaamay tirin waxba kuma sheegin nabaday meeshi ba igu istaagta islaanti waa ishayn kari weyday waa isciilkaambisay way carootay
istaag soco fadhi waxa aysan ku kicin male odayga bay u yeertay qabi cadar aabaheed kaale ma og tahay waxaan maanta la ii sheegay maxaa lagu sheegay gabadheena ninka qaba inuuba gabar kale guursan rabo gabar kale inuuba qabanqaabada guurkooda uuba soo dhow yahay baan soo ogaaday maanta odayga halkan uu soo booday maxaa tiri bakooro dubduf soo yiriyo see ii qaban kartaa aniga waata qoday Soomaali xanaaqay dhulku saa u garaacay ma anigu saa ii wal dhaqmi karaa dhag hadda u tagayaa ka bixi mayna maanta gabadhayda saddexdeedan ka soo qaadaya waana ka soo kaxaysanaya maxaaba u yaalaba odagan meel cidlo iska waalaya jaa ninkan hawshiisa wuu dhamaystay wax uu ka dhan oo ka leeyahay ma jirto gabadhuu jacaylkiisa horuu la midoobay gabadhaana waaba dhameerdhaan raacda waxba uma ahanba gabadhaa miskiinta xaqa laga galay dadweyneoo inta i daawanaysa bal idinkuba soo sheega odayga daf buu yiriyo wuu baxayo ninkiiba u tagay wuxuu yiri haya haa adeer soo dheeraata maanta haa waa kuu soo dheeraada haye maxaa ka saamsanaa gabadheedu hadal dheer maba lisla gelinba odayga jaa dhiigaa ku karay gabadheedu waxaa ka damacsan tahay ii sheeg gabadhaada haa adeero adigoo raali ah gabadhaada inaan kuu fasaxo baaban ka damacsanahay maadaama adiga aad ii timidna waaban kuu fasaxay gabadhaada waaban kuu fasaxay muran iyo hadal tiro badan maba sii geli karaba waan kuu fasaxay gabadhaada mac salaam kasoo kaxee gurigayga joogtaa soo wada gabadhaada waaban kuu fasaxayba saddexdeeda iga qabtaa duubduub ha u qaadato anigana iga raali lahaa intaan isku dhibtoonayba nagu kala wada meesha asxaabay gabadha cadarahayd halkaas ayaa saddexdeedii lagu siiyey gabarnimadeedii looga ciyaaray jacaylkeedii looga ciyaaray qisadii maanta wajiyaalis xasuusta halkan baan kusoo gabagabaynaynaa la soco qaybta 4 haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saar like share waa xaggaaga wixii tala soo jeedinaya qisadan ku saabsanna commentiga igula soo wadaaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu